بسم الله السلام عليكم صاحب بيال سو دوادا موقال كلا iyo sub invest muuqaalkan ila gaaban waxaan rabaa in aan idinku tuso habka loo sameeyo trading journal ama diiwaanka maalinlaha ah ee tradingka aad sameysid wax badan buu kaa caawin doonaa habkaad martay khibradaad ka faa'iideysaa haddii aad journal in aad ku sameysid maalin kasta trade aad gashay meeshii aad ka gashay halkaad kaga baxday faa'iidada khasaare wixii uu keenay session aad gashay taariikhda gashay waxyaabahaas oo dhan qortid muddo waxaad arki doontaa adiga oo wax badan ka bartay marka saaxiibayaal marka aad eegtid dadka forex trading meel sare ka gaaray khibradda u leh in badan ku jiray waliba dadka ajaanibta ay u badan yihiin badankoodu waxay sheegaan in ay khibrad iyo casharro ay ka bartaan trading journalka ay sameeyaan maalin walba ama trade walba ay galaanba marka inaguna insha Allah saasan sameyn doonaa anigu muddo badan baan trading journal aan sameynayay kanna waa trading journal aan maanta bilaabay akoon 200,000 ah oo funded next ah marka intan yar tusaale ahaan baad ku siinayaa harjinaya qof waliba inuu excel ku sameysto ama uu gacanta ku qorto ama uu mobilkiisa uu abka kala duwan ku qorto qofkii u baahan in aan u soo diro sheet kan oo kalena oo sidaas u habaysan isaguna uu ku buuxsan doono maalin kastaba halka ay u marayso isna waan soo diri doonaa muuqaalka hoostiisa description-ka linkiga yaala ha ku dhufto WhatsApp-keena ama Telegram-keena ha ku dhufto kadibna WhatsApp-keena ka soo raaco waan siinaya insha Allah marka haddii aan isla eegno anigu sidaan baan u isticmaalaa trading journal-kayga dheedka ugu horeeya taariikhda marka trade-kan aan maanta qaatay 18ka bisha August ama 2025 waxa aan qaatay session-kii baan qaatay London session baan qaatay xagga sare maxaa ku qoran bayrka aan qaatay waxaan qaatay dahab gold baan qaatay xagga sare waxa ku qoran position saliya baykii aad qaatay waxaan qaatay buy baan siiyay oo waan iibsaday lot size-ka ayaa ugu muhiimsan oo waxaad ka baran doontaa lot size-yada badanka isticmaashid marka halkan ba risk management-guna uu soo hoosgalaya marka anigu waxaan sameeyaa akoonka 200,000 maadaama akoon yahay lot 2 baan qaatay entry price-ka halkaad ka gashay goal maadaama qaadato baasiisa halkaad ka gashay halka ma galay 1910.5 baan ka galay SL-ka maxaad sameysay SL-ka waxaan dhigay 1905 TB-ga ayaa isna record gareyn doontaa TB-gaaga ama target-gaaga muxuu ahaa 1920 buu ahaa trade-ka waa halka kaga baxday target-kaaga mid gaadhay mise meel hoos kaga baxday mise SL-ku kaga dhacay mise waxyaabo noocaas ah marka waxaan kaga baxay 1980.2 oo ah TB-ga ama target-kayga meel dhow sababtana qofka uu garan karaa hadduu doono trade-kan bay usoo laabtay hadduu doono waan ka shakiyay inuu TB-ga uu gaari waayay marka qof walba saa garan karaa profit loss per dollar ma loss baad gashay mise profit baad sameysay dollar ahaan waa mise marka kan isaga faa'iido sameeyay dahabka waxaan sameeyay 1540 intuu percentage ku noqonaya percentage wuxuu ku noqonaya marka akoonka 200 loo eego 0.77 marka 2% xataa ma aha marka 1% ma aha baan ka wadaa marka 1% buu dhawaaday waana risk management fiican baan sameeyay maximum loss uu leeyahay maximum daily loss mid gaadhay may marka tikba taaraysa ama hadda dhawaatay oo kale yani marka adiga akoonkaaga maadaama challenge yahay waxaad ka fiirin doontaa daily loss-ka inaad u dhawaatay marka aad baad ka fiirin doontaa haddaad bridge garaysa halkan waa khalad bay noqon doontaa hadii akoonka saas laga xidhi doonaa marka adiga daily loss-kaaga ayaa xisaabsanaysaa marka maan gaarin way camal halkan waxaad ku qoran doontaa wixii notice ah notice ama emotion waxa dareemisay iyo rules-ka aad raacday iyo waxyaabahaas halka rule-kaygi waan follow gareeyay ama plan-kaygi dejisnaa ee ah inaan maalin walba
aan haddaan doono trade kan aan qaato 2% aan ku qaato lot size 2 ama 1 good entry fiican baan ka helay oo ka galay after pullback. marka halkan waxa weeye meelaha aad khibrada fiican aad ka heli doontid. pullback kadib ayaan good entry ka helay marka halkan ma ka qaatay. marka isagana xagga dambe wax ku qortaa wixii notes af Soomaaliga ku qoran kartaa waxyaabaha dareemaysay in suuq uu soo laabtay oo kale inaad ka baqday oo kale inuu ku soo laabto meesha aad ka heshay waxyaabo noocaas ah waqtina waad raacin kartaa. marka taas intaasaan ku daynayaa. trade labaad aan qaatay waa isla maanta 28ka bisha 8aad oo ku shay 20 New York Station baan qaatay GBPUSD baan ka qaatay waan sal galay position ka sameeyay. lot size kan waxaan qaatay 1.5 kii horena maxaan qaaday 2 baan qaatay. entry price kaygu waxa 1.274 SL ka waxaan dhigtay intaasaan dhigtay TP gana ama targetguna waxa 1.265 exit price. marka kamaan kaga baxay isagoo aan gaarin SL kii ayaan ka laabtay. loss iyo profit ka kan loss baan galay minus $450 baan galay oo dhiganta 0.23 daily loss kama gaarin. kana waxa weeye notice-kii wixii aad qoranaysay xilli early baan ka baxay. marka revenge trade uu ahaa saas aad wada qoran doontaa haddii aad rabtid maalinka biri oo kale halkan baad ku qoran kartaa taariikhdaada kadibna saas aad u socon doontaa 29ka bisha 8aad. marka saas aad u qoran doontaa haddii qof uu rabo in aan u qoro ama aan u diro sheet kan oo kalena ila soo wadaagi karaa. marka birito ayaad halkan ka bilaabi doontaa ama haddii aad maanta trade ka qaadatin kastaanay wanaagsaneyn qofku in uu trade badan u qaato. marka saas aad u qoran doontaa maalin kasta trade ka aad samaysid saas aad halkan aad ugu diiwaan gelin doontaa. kadibna waxaad arki doontaa muddo marka laga soo wareego in aad haysatid journal dhammaystiran. ka khibrad aad u la yaab leh baad ka saari kartaa isaga laftiisa research ku samayn kartaa waxyaabaha aad magaranaysaa aad dayacday iyo waxyaabaad ku wanaagsanayd iyo waxyaabahaas oo dhan baad arki doontaa. haddii aad journal trading journal 30 maalmood ah inka aad haysatid waxaa laga samayn karaa research dhammaystiran oo suuqa ku saabsan khibrad dhammaystiran baad ka heli doontaa. marka walaalayaal waxaa idin kula talinayaa 100% qof walba in aad sameystid. muhiim ma aha inaad computerkaaga ku sameysatid ama Excel sheet ku sameystid. muhiim ma aha inaad application kale oo mobilka aad ku sameysatid. haddaad qalin iyo book yar aad ag dhigtid waa 1 daqiiqo trade marka saa uga baxdid haddii aad qortid waqtigii aad gashay iyo intaas kale aad diraaciba waxyaabo qaar oo ka tagi kartaa wax mushkilada ma laha. laakiin waxaa muhiim ah in journal trade aad sameysid oo marka aad akoonka dhaafisid ama aad meel ximari kartaa ama 10 isho aad u fiirin kartid shaqada soo qabatay aad iyo aad bay la yaab noqon doontaa aadna wad ugu farxi doontaan. marka saaxiibayaal insha Allah waxaan rajeynayaa qofkii suuqan kale mustaqbal fiican in uu journal trading uu sameyn doono waxyaabo badanna wad ka faa'iidi doontaa. journalinka badanka waxa loo sameyn jiray sida nolosha caadiga wax qabadada maalinlaha ah ee la eegi jiray. marka iminka inagu waxaan u adeegsanaynaa trading bay inagu adeegsanaynaa isagana muhiim ah. lacag baad sameynaysaa lacag baad korinaysaa dhaqaalaad sameynaysaa waa shaqadaadii. laakiin dad badanka journalinka waxay moodaan in laga sameeyo dhacdooyinkaaga maalin loo soo maray wixii aad qabatay maanta miyaad xanaaqsan maanta maxaad soo qabatay maxaad ka tagtay balaankaagi maxaa kaaga fulay waxyaabahaas ka journalinku sameeyaan. laakiin kan baa 100% ka muhiimsan oo journalinkii aad trading ku sameeyay waxaan waa lacag real ah akoonka 200 oo kun bilaash laguma siinin lacag kun ka badan ayaa laga siiyay waana shaqadaadii. waxa laga yaabaa shaqo kale oo bishii 200 300 400 500 ka soo galaan in aad maalinkii oo dhan aad wax qortid aad samaysid balaano kala duwan waxyaabaha samaysid. laakiin tani waa lacag real ah waxa laga yaabaa haddaad samaysid balaankaagan ama trading journalinkaaga aad samaysid waxa laga yaabaa bishii in aad lacag kumanaan aad ka shaqeyn kartid. marka saaxiibayaal joogtiinta isku daya deganaan muujiya trading journal sameeya mushkilad ma laha. haddii aad khasaartid qor
haddii aad 30 maalmo khasaarta xataa waa qori kartaa, wax mushkila ma laha. khibradda ka baranaysaa, dib unbaad ugu laabanaysaa. waxaad eegaysaa gaabiska ama waxyaabaha aad ka tagtay, inaad ku degdegto oo kale. xataa dateka in la raaciyo timeka ayaan jeclaan lahaa, iyo weliba timeka uu trailku u socday, haddii uu 3 saacadood ahaa iyo hadduu 5 saacadood ahaa inaad qori kartid. markaa isku day insha allah inaad samaysid. anigana whatsappkaad igala soo xiriiri kartaa, ama telegramkeena somifest linkiga yaala whatsappka iga soo qaba insha allah. waa kuu soo diri doonaa sheetkan, marka adiguna maagta saasad burbursan doontaa, computerkaaga ma dhigan doontaa, saas unbaad ugu qorqoran doontaa insha allah. daily markaa 3 cisho kadib qofka aan u diro ayaan isla eegi doonaa bal waxa uu ka faa'iiday. waxaan rajeynaya dhalinyarada badani ay ka faa'iidi doontaa insha allah. halkan awood kula wadaagaya qof walba iyo faa'iidooyinka uu ka sameeyey journaling marka uu sameeyey, iyo wixii khibradu ka fahmay insha allah. waxaan rajeynaya inaad muuqaalkan like saari doontid, commentigana wixii su-aal aad qabteen nagu soo weydiin doontid. haddii aan nagu soo biirin subscribe noo saar. youtube-keena waxaan rajeynaya si maalinla ah ama 2 maalinba mar ah aan muuqaal usoo gelin doono insha allah. markaa soo dhawaada saaxiibayaal. wasalaamu calaykum.